dhegaystayaal ararta qaybteeda gabay kufaanka iyo bajinta maansayahanada kale ku saabsan waataan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey ba'laydii uu raago ugaas u tiriyey ina ammaan gabyaagii la odhan jiraye ay isku waayaha ahaayeen raggii dambe qudhowduna aad bay ararta noocaasa ugu hormareen mararka qaarkoodna waxayba ila noqotaa in iyagu ay kuwii hore kaga horreeyaan si kastaba ha ahaatee markaan dib u milicsado araraha maansada ee hal abuurada dambe ay soo ifbixiyeen ayay ila ahaataa in aanan ku gabsanayn haddaan tusaale u haysto allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yiqiin ninkii la dagaalanka qabyaaladda ay maansadiisu u badnayde lixdanadii qarnigii labaatanaad sida weyn uu magaciisu u soo shaacbaxay wuxuu ka mid ahaa maansayahanada soomaalida kuwooda ugu ararta culus taasoo ka muuqata bilowga tix kasta oo uu tirinayo runtiina wuxuu ahaa gabyaa ay arartu wax weyn ugu fadhido gabay ama geeraar uu leeyahay oo aan arar lahayna waa dhif iyo farakutiris wuxuu ahaa ninkii odhan jiray malyaneerka arartuu ahaa macallinkaygiiye mudanihii aflow iyo sidii maxamed mawyeersh bal u fiirso arar uu u yeedhay ujeedda ahaan tix aan waxba kaga duwanayn kuwii uu sannadihii lixdanadii soomaalida kaga waanin jiray qabyaaladda iyo dhaqamada xunxun ee aalaaba ku mataansan sida dagaalada toltolka ku saraysan kala qaadka xoolaha iyo marin habaabinta hanaanka doorashooyinkii siyaasadeed ee beryaha baarlamaanka soomaaliya loogu tartami jiray wuxuu ku bilaabayaa dhowr meelis oo uu ku muujinayo guud ahaan tayada maansadu siday hoos ugu dhacday ee ay ugu dhimatay gacnaha rag uu qaraamiga yaryar ku magacaabayo kuwaasoo uu ula jeeday dhallinyaradii hal abuurada ahayd ee inta reer magaalowday erey iyo luuqba hiddaheenni maanso isbeddelka weyn ku sameeyey waa dhallinyaradii badaha fudfudud ee maansada intay midhaha ku tiriyaan muusiga la doonan jiray dabadeedna inta ku heesay soo ifbixiyey heelooyinkii jacaylka ahaa ee inta laga daba dhacay dhulka soomaalida mar qura sidii gubata xagaa ugu wada baahay wuxuu ararta qaybteeda hore timcadda ku yidhi in dhowaydba qaafkiisa gabay qaadis ma lahayne wax waliba qisuu leeyihiiyo qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qarad la-aan sheegee halkaan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodsaaye maansada qaraamigan yaryare qayliyaa diray dhallinyaradii markuu sidaa u qallaco ayuu halhaleel wuxuu u gudagelayaa maansadiisa inuu tilmaamo madaxayga wuxuu dareensanaa weydiin meesha ku jirta oo innaga dhegaysatada ahi inaan isweydiinno laga yaabo isweydiin noqon karaysa oo timacaddow haddii ay qaraamiga yaryari maansadii dileen bal noo sheeg waxa taadu ay tooda kaga duwan tahay tilmaan la yaab leh oo inay dhammaata mooye ujeeddada uu ka leeyahay aan durba la garan karin ayuu inoogu jawaabayaa wuxuu soo qaatay dagaalkii labaad ee dunida iyo hoog iyo ba wixii quruumaha kala gaaray qaaradda yurub gaar ahaan dalalka faransiiska jarmalka iyo talyaaniga khasaarihii dirirta ka soo gaaray iyo burburkii ku dhacay ayuu xusayaa wuxuu inoo sawirayaa jawi dagaaloo laga cabsoodo marka uu tirinayo hubkii wax mahambeeyaanka ahaa ee qolooyinkii dirirayay ay isku gumaadayeen baaruud meel walba ka qarxaysa taangiyo iyo baabuur gaashaaman maraakiib dagaal iyo waa wixii ugu ba'naaye bamba atomigii jabaan lagu riday ee maantaa kadib qab iyo raganimo dambaba uu haybintooda dan uga baxay welise waxaa inoo bannaan inaan isweydiinno waxaa ka dhexayn kara dirirtaas iyada ah iyo maansada timcadde waatan jawaabtu qumbuladihii xoogga iyo daryaanka weynaa ee maalmaha la isku ridayay qaar la xoog ah asii arar qaali ah iyo erayo maanso oo culculus ka samaysan ayuu isaguna dhagaheenna dushooda ku soo qubi doonaaye ha loo toog hayo oo ha la weeleeyo wuxuu yidhi qarka oroba qaaliga faraas qooriyada maarsi quruxdii almaan iyo dhulkii muuse laga qaaday qalcadihii burburay reerahay qadaydu yeeraysay ninna lama qasbine wau qasdeen inay khasaaraane wuxuu qalinku meeraba markii laysu wada qaatay qabbaa raggiisu geeyee markay qaraxday baaruuddu taandiga qafilan maalintuu qaatay minawaarku qalladii jabaan lagu dhuftay uu qoob la rogi waayey qumbulooyinkii oo kale yaan maanta qubayaaye haddaad qaban karaysaan araar qaaliyaan tirinib haddiise ay jireen maansayahano kale oo arartaba waqti lubis u haystay sidaa darteedna durbadiiba durucda hoos ugu daadegi jiray
timacadda isagu taa wuu kaga duwanaa wuxuu rumaysnaa inay jiraan shuruudo dhowra oo mar walba ay tixda wanaagsani ku tilmaaman tahay laguna garan karo waxaa ka mid ah ararta culus luuqda macaan carabka soohidda meedisyada u tababaran iyo laabta aan darabta lahayne ay daacadnimadu ka dhadhamayso arrintaa iyada ah waxa uu timacadda ku xusay 1970kii gabay uu tiriyey kaasoo uu ku taageerayay saraakiisha golihii sare ee kacaanku markii ay go'aamiyeen in dalka laga eriyo dhalinyaradii maraykanka ahayd ee Peace Corps loo yaqiin gabayga ayuu u yeeray arar gabay kufaana isla markaasna aad moodo da'yartii waagaas maansada bilaabaysay inuu ku tababarayay wuxuu yiri casharkiisa gabay waanigaan culunin waayahay calooshayda waataan ka jaray culitinkiisii caanaha anoo lay qabto iyo caawa ururkeenna meeshii caruurnimo anaa caalim ku ahay rag baa calaliye maalintaan caynabka u fuulo caynaanka goortaan qabsado calas laheensiiyey cagta waxaan u saaraa jidkaan caanka ku ahaa ee cabaad dheerahan kaga tagaa cayn duleedka ahe sidii aar cargaagtamay markaan dhuunta ka cisiiyo cusayb waan ka soo saari jiray meel cidhiidhiga arar culus codkiiyo luuqdu waa cuduudaheedii carab layliyan laab culan haddii la cuskisiin waayo caya iyo wuxuu kaa noqdaa caws kaliishaday عرّن الله إلى هدي حزبي ولا حيائي وحكام الله carabtu waxay leedahay oraah fulweyno la fogurayaashii hore ee maansadoodu ay soo ifbixiyeen taasoo markii dambe maahmaha isu rogtay waxay odhan jireen acdabu shicri akdabuh oo macnaheedu yahay gabay waxa ugu macaan midka ugu beenta badan haddiise ay aqoon lahaayeen gabayada timacadde geeraarada cali xuseen iyo saarka carays ciise waxaan israahdaa waxay odhan lahaayeen gabay waxa ugu macaan kan ugu runta badan ee af iyo uur aan kala taganayn maansayahanka kaga soo baxa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo